maanta ay taariikhda 23 May 2024 waxaan ka warbixinaynaa howlgalkii ugu dambeeyay fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka kaas oo lagu gaarsiiyay khawaarijta qasaare aad u weyn guutada 16aad ee kumaandoosta danab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaysa horinta gaashaaman ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaan hoostaga degmada Rundugood ee gobolka Shabeellaha Dhexe sidaas oo kale ciidanka kumaandoosta danab ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay kuna dilay 4 dhagar qabay laba horjoogad deegaanka lagu magacaabo Toorotoro ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 77 ayaa gacanta ku dhigay gaari Leila Calaawi ah oo sida hub iyo saanad kale ay argixisada isticmaalayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa cagta mariyay fariisin ee khawaarijta ay ku lahaayeen deegaanka dhaxyaalo oo ah dhul hawd ah oo 18 kiiloomitir kaga beegan dhanka galbeed ee magaalada Masagawaay deegaan hoostaga galweyn oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose howlgal ay ka fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 6aad qaybta 6aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu khaarijiyay horjooga lagu magacaabi jiray Cabdulqaadir Eenu duqeyn ka dhacday Cali Hayle hoostagta degmada Rundugood ayaa lagu gubay gaari booyad ah oo khawaarij isticmaalayeen waxaana lagu dilay maleeshiyaad ilaalinaya gaarigaas duqeyn labaad ayaa ka dhacday deegaanka Barakshay Caamir ee hoostagta degmada Galcad ee gobolka Galgaduud waxaana lagu gubay gaari Cabdibilaa sidaas oo kale waxa lagu laayay ilaaladii gaarigaas Cabdibilaa la socotay Ibrahim Ali Maxamed oo magaciisa afgarashada khawaarijta u taqeena Baariyo ayaa isku soo dhiibay taliska guutada 8aad qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aadan macali cali yarow oo ka soo goosta khawaarijta ku dhuumaaleysanaya gobolka Mudug ayaa isku soo dhiibay ciidanka qaranka iyo kuwa deegaanka ee ka howlgala degmada Xardheer ee gobolka Mudug Maxamuud Axmed Janaay oo kamid ah maleeshiyaadka khawaarijta ayaa maanta isku soo dhiibay laamaha ammaanka magaalada Garbaharre aadan isxaaq iyadoo oo magac afgarashada khawaarijta loo yaqaan Ayuub Dheer ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 8aad qaybta 6aad waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada la maran hagaabiyay ee fikirka khawaarijta aaminsan inay ka faa'iideystaan baaqa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa yiri ma taayib min dambi kama la damba lahu qofka toobadkeena wuxuu la mid yahay isagoo dambaabin sidaas oo kale waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku bogaadinaynaa howlgallada qorsheysan ay ku baadi goobayaan khawaarijta inay si laba jibaaraan ayagoo fartoomaya xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ahay duuba liman qatalahu wa qataluhu laanta jannatu usugnaat qofkii dilaan bay dilaan sidaas oo kale nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay qofkii dilaan inuu qofkii dilo inuu leeyahay falahu ajru shahiidin qof shahiid ajirkiisa oo kale qofka ay dilaana falahu ajru shahiidayn laba shahiid ajirkood inuu leeyahay waxaan ku bogaadinaynaa howlgallada qorsheysan oo barakaysan ay fulinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay halkaas ka sii laba jibaara habeenii maalina ha ka nasanina khawaarijta sida u daba joogtaan halkaas ay cibaadada naga jirtaa